kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ka degay magaalada Addis Ababa kadib markii diyaarad qaas ah u soo dirtay dowladda Itoobiya oo doonaysa inay heshiis la gasho Laftagareen Puntland oo ku goodisay inay la wareegayso magaalada Burco haddii ayna Somaliland joojinin daandaansiga ee ka wado gobolada Sool iyo Sanaag iyo duulaanka ay ku soo qaadayso deegaanada ay Puntland gacanta ku hayso iyo khilaafka dhaxqarxay madaxda dowlad goboleedka Jubbaland oo ku kala aragti duwanaaday sida loo wajahayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Luga Dheere oo soo dhaweeyay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo sheegay in madaxweyne Axmed Madoobe uu ku qanacsan yahay xukuumadda isla markaana Jubbaland ay garab istaagi doonto xilli uu horey uga hor yimid dhismaha xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan bilowna sida hordhaca warkeena aad ku maqasheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ka degay magaalada Addis Ababa kadib markii caasimad rasmi ah uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo xiriir toos ah la yeeshay madaxda maamul goboleedyada Laftagareen ayaa la sheegay inay ka qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya gaar ahaan nooca loo yaqaano helicopterka oo ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo halkaasi uu ka raacay Laftagareen iyadoo ka dejisay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa sheegay inay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Itoobiya gaar ahaan saraakiisha dhinaca ciidanka oo kolkii horeba weheliyay markii uu ka baxayay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo halkaasi oo ay ka sii raaceen saraakiisha ciidamada Itoobiya qaybtooda Baydhabo madaxda ka ah booqashada Laftagareen ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa ku aaday iyadoo khilaaf culus ka dhex qarxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Itoobiya oo isku maandhaafay booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Qaahira halkaas oo kulmay dhigiisa dalka Masar Cabdi Fataax Siisi oo ka sheegay kulankii uu la yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud inay ka wada hadleen biyo xidheenka Webiga Niil ay dowladda Itoobiya wado isagoo madaxweyne Siisi sheegay inay Soomaaliya qayb ka noqon doonto sidii looga hortagi lahaa xidheenkaasi khatarta ku ah biyaha Webiga Niil ee Itoobiya ay samaysay wixii ka dambeeyay tan iyo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud ka soo laabtay magaalada Qaahira caasimadda waddanka Masar waxay Itoobiya qaadaysay tallaabooyin u muuqday kala qaybin iyo dib u soo celinta siyaasadeedii kala dhantaalida dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee horey Soomaaliya uga fulin jirtay Itoobiya waxay la soo baxday dhaqamo aan lagu aqoonin shantii sane ee la soo dhaafay uu dalka madaxweynaha ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo mar qura saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya booqashooyin ku kala tageen magaalooyinka Beledweyne Baydhabo iyo sidoo kale Hargeysa halkaasi oo ay kula kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle Somaliland iyo Koonfur Galbeed waxaa magaalada Addis Ababa u tagay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo la sheegay inuu ninka sida gaarka u fududeynaya cilaaqaadka dowladda Itoobiya iyo maamulada ka dhisan gudaha Soomaaliya wuxuuna durba ka dhaadhiciyay qorshaha kala qaybinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Itoobiya ee ka shaqeynaysa hogaamiyaha Koonfur Galbeed Laftagareen oo si toos ah uga degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya Laftagareen ayaa booqashadiisa magaalada Addis Ababa ku beegay maalmo kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre soo magacaabay xukuumaddiisa oo u badan xubnaha ay sayaan hogaamiyaha Koonfur Galbeed shanta xubnood ee deegaan ahaan xukuumadda Soomaaliya ka soo galay Koonfur Galbeed dhammaantood ayaa kuwa ay xurguf siyaasadeed kala dhexaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen waxaana ugu horeeya Sheekh Mukhtaar Roobow wasiirka diinta uu qaaftay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo xabsiga loo dhaadhiciyay intii lagu guda jiray doorashadii Koonfur Galbeed uu Laftagareen ku soo baxay 2018 waqtigaasi oo loo xidhay Sheekh Mukhtaar Roobow si uu Laftagareen madaxweyne uga noqdo yoolkaasi oo xilligaasi ka dhabaysay xukuumaddii talada haysay cabsi weyn ay ka qabtay balse isbedelkii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horseeday in Sheekh Mukhtaar Roobow uu jaanis ka helo xukuumadda cusub isla markaana xabsiga laga sii daayo oo kalena xilli wasiirnimo lagu abaalmariyo wuxuu dareensan yahay Laftagareen in Xasan Sheekh Maxamuud duulaan ku soo yahay isla markaana
markaana ayna suurtagal ahayn inuu ku soo laabto kursiga madaxweynaha koonfur galbeed oo xitaa lagu haystaa muddo kororsi ay u sameeyeen baarlamaanka koonfur galbeed oo hal sano ah in la iswaafajiyey imtixaanaadka madaxweynaha iyo baarlamaanka oo kolkii hore hal sano kala horeeyey balse madaxweynaha koonfur galbeed oo muddada xileyntiisu ay ahayd 4 sano ayaa laga dhigay 5 sano si ay baarlamaanka isku mar u dhacaan dowladda federaalka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaaminayo iyo xubnaha siyaasiyiinta ee kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa aaminsan in lafta gareen muddo xileedkiisa 4 sano ah ee dastuurka koonfur galbeed ku qoran uu ku egyahay bisha December ee sanadkan loona baahan yahay xilligaasi ee koonfur galbeed doorasho dhammaan wasiiradii uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gaar ahaan kuwii ay hayeen hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa sababta ugu weyn ee xukuumadda lagu soo daray lagu sheegay inay ahayd sidii loogu cadaadin lahaa hogaamiyaha koonfur galbeed Tigrean ayaa samicin biday dowladda Itoobiya ay hayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo kala shiraya madaxda dalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sidii isaga looga caawin lahaa inuu ku sii nagaado kursiga madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu isku haleynayaa awoodda ciidamada Itoobiya qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo horey loo odhan jiray haddana ATMIS kuwaasi oo xoogoodu ay joogaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ee koonfur galbeed danka Itoobiya ee Baydhabo ku sugan isaga ka caawiyaan inuu ugu yaraan dhammaysto halka sane ee muddo kororsiga ee uu samaystay oo xilka madaxtinimada koonfur galbeed uu hayo 5 sano isagoo doonaya in xilliga kadib la qabto doorasho aan waxba ka duwanayn horey u dhacday Tigrean ayaa ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay dowladda Itoobiya kalena hadli doona waxay tahay in laga difaaco xukuumadda Muqdisho isagoo doonaya in ciidamada Itoobiya gacan buuxda siiyaan dowladda Itoobiya dhankeeda waxay lafta gareen ka leedahay laba ujeedo tan koobaad waa inuu xoojiyo mucaaradnimadiisa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ugu yaraan ay villa Soomaaliya ugu qasbanaato inay Itoobiya heshiis la gasho una fuliso danaheeda gobolka gaar ahaan inay kor uga baxdo iyo xidheenka webiga Niil ee Masar ku garab istaagtay waxay doonaysaa sidoo kale xukuumadda Addis Ababa inuu lafta gareen gacan ka geysto dagaalka Itoobiya kula jirto al-shabaab oo dhowaan ka soo tallaabay xadka u dhaxeeya gobolka Boqol iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida halkaasi oo al-shabaab ay weerar ka geysteen kadibna gudaha u galeen deegaanka Soomaalida iyagoo markii hore weerar ku qaaday deegaanada Yeed iyo Caato ee gobolka Boqol ee koonfur galbeed oo ku yaala xadka ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo gobolka Boqol waxay doonaysaa dowladda Itoobiya inuu lafta gareen uu ka qayb qaato sidii ciidamada Itoobiya ay saldhigyo uga samaysan lahaayeen deegaanada koonfur galbeed intooda badan gaar ahaan kuwa gobolka Boqol ee gudaha Soomaaliya maadaama uu horey uga dhawaajiyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar inay ka agan argagixisada ay ka samaysan doonaan gudaha Soomaaliya si looga baaqsado mar walba la soo weeraro deegaanka Soomaalida isla markaana meesha lagu dagaalamayo ay noqoto gudaha Soomaaliya si ayna wax dagaal ah iyo weerar uga dhicin deegaanka Soomaalida uu sheegay in amnigiisa ay adkeyn doonaan madaxweyne Cagjar qorshaha ayaa la doonayaa in lafta gareen uu qalinka ku duugo isla markaana ciidamo hor leh oo ka soo Itoobiya ay ka soo tallaabaan xuduudda lana geeyo deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed gaar ahaan kuwa xad iyo sidoo kale in la xoojiyo ciidanka Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo si ay kursiga u sii hayaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen booqashada lafta gareen ee magaalada Addis Ababa ayaa dhabar jab siyaasadeed ku ah madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dareensan inay koonfur galbeed u gali doonto booska ay Jubbaland ugu jirtay maamulkii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay labada qorsho isku mid u muuqdaan maadaama ay koonfur galbeed oo garab ka helaysay Itoobiya mucaarad ku tahay xasan sheekh maxamuud halka Jubbaland oo garab ka helaysay Kenyana ay mucaarad ku ahayd dowladii hore uu hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Puntland ayaa ku goodisay inay awood ciidan ku qabsan doonto deegaanada ay Soomaaliya maamusho gaar ah Burco iyo dhulka kale ee Somaliland gacanta ku hayso wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Ciidiid ayaa ka hadlay ciidamada faraha badan ee Somaliland ay soo dhooftay degmada Boocame ee gobolka Sool iyo xiisada halkaasi ka taagan wasiirka warbaahinta kulaha magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo martay dhibaatooyin iyaga dhexdooda isu geysatay oo dadkeedu gaarsiiyeen balse aan laga faa'iideynin waxaan khasaare ahayn dhibaatooyinkaasi ay dadka Soomaaliyeed isku hayaan sidoo kale wuxuu sheegay in xilligan ay nasiib darro tahay in maamul
Soomaaliyeed uu soo hub qaatay inuu dhibaateeyo dad kale iyadoo lagu guda jiro waqti abaaro, isagoo Somaliland ku eedeeyay inay weerar ku tahay dhulka Puntland oo ayna gacan siinayso dagaalamayaasha Al-Shabaab oo horey uga dagaalamayay qaybo ka mid ah Puntland. Wasiirka warfaafinta Puntland wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in Somaliland markasta oo ciidamada Puntland laabaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ay ka barbar furaan ciidamada Puntland. Warka ka soo yeedhay wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Somaliland ay gudaha u galeen degmada Boocame iyadoo degmadaasi ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland iyo ciidamo ka tirsan Puntland, waxaana halkaasi dhashay shaqaaqa ay labada dhinac siyaabo kala duwan uga hadleen. Puntland waxay sheegtay in Somaliland ay duulaan ku soo qaaday oo ay doonayso inay la wareegto Boocame iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada ay labada dhinac isku hayaan ee Sool iyo Sanaag, halka Somaliland ay sheegtay inay ilaashanayso xuduudeeda oo Puntland horey ugu soo xadgudubtay. Balse wasiirka warfaafinta Puntland wuxuu sheegay inuusan dagaal ku ekaan doonin Boocame iyo deegaanada kale ee hadda labada dhinac isku hor fadhiyaan, balse haddii ay Somaliland joojin weydo daandaansiga ay Puntland qabsan doonto Burco iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Somaliland. Xiisada Puntland iyo Somaliland oo sanado badan soo jirtay ayaan weli xal loo helin, waana u muuqdaa ismaandhaafka labada dhinac mid sii daba dheeraanaya iyadoo dadka ku nool labada gobol ay isku hayaan Somaliland iyo Puntland iyo Sool iyo Sanaag aysan wax talo ah ku lahayn dhaqdhaqaaqyada ay kala wadaan xukuumadaha Hargeysa iyo Garowe. Khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, kuwaasi oo isku maandhaafsan qaabka loo wajahayo xukuumadda cusub ee Soomaaliya uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Maamulka Jubbaland ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan xukuumadda cusub ee Soomaaliya uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxayna sheegeen inay taageersan yihiin xukuumadda cusub oo ay la dhacsan yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji ayaa sheegay inay si buuxda u taageerayaan xukuumadda cusub, isagoo ugu baaqay golaha shacabka inay ansixiyaan golaha wasiirada oo uu ku tilmaamay kuwo tayo leh oo dalka samata bixin kara. Wuxuu sheegay in Jubbaland mowqifkoodu uu yahay mid ku aadan taageeridda golaha cusub ee wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, sida uu ka dhawaajiyay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji. Wuxuuna carabka ku dhuftay in Jubbaland ay mar walba la safan tahay dowladda federaalka kalena shaqayn doonto sidii dalka looga samata bixin lahaa marxaladda uu ku sugan yahay. Waxaa kaloo uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay taageero isla garab taagaan golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu sheegay inay yihiin kuwa ka turjumaya marxaladda uu dalku ku sugan yahay ee Soomaaliyana ka saaraya dhibaatada ay ku jirto. Hadalka ka soo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Luga Dheere ayaa ku soo aadaya iyadoo warqad ka soo baxday kulan ay aaladda fogaan aragga ah ku yeesheen madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ee Jubbaland iyo Galmudug lagu dulmiyay saami qaybsiga golaha wasiirada, waxayna tani ka dhigan tahay in madaxda sare ee Jubbaland ayna isku mowqif ka ahayn habka loo wajahayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isaga laftigiisa uu ka soo jeedo Jubbaland islamarkaana isku beel yihiin Axmed Madoobe weli wax hadal kama soo bixin oo ku aadan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, balse wuxuu u muuqdaa nin mowqifkiisa soo dhex marsaday madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Luga Dheere oo isagu xukuumadda isgarab taagay golaha shacabkana ugu baaqay inay ansixiyaan. Hase yeeshee waxaa diidan mowqifka Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa labaad Maxamuud Sayid Aadan oo isagu maadaama sida uu sheegay beesha uu ka dhashay ee Mareexaan ayna ka helin saamigii ay ka filayeen xukuumadda cusub, maadaama beesha Mareexaan la siiyey hal wasiir oo kaliya oo ah wasiirka amniga. Labada madaxweyne ku-xigeen ee Galmudug iyo Jubbaland waxay sheegeen inay qabanayaan shir wadatashi ah oo beeshoodu loogana arisanayo xukuumadda cusub. Sidoo kalena xildhibaanada golaha shacabka beeshaasi ayaa iyaguna qaadacay habka loo soo dhisay xukuumadda ay ku tilmaameen mid balmarsan saami qaybsiga beelaha Soomaaliyeed, inkastoo aan la ogeyn sida loo qancin karo qaybsiga beelaha. Muddo dheer ayaa la sheegay in beeshan u ololeynaysay inay ka hesho xukuumadda ugu yaraan 2 wasiir ama mid ka mid ah wasiirada muhiimka ah, iyadoo baadigoobaysay wasiirka arrimaha dibadda inay golaha shacabku xukuumadda meel mariyaan. Marka la eego qabanqaabada socota iyo sida dadaalka xoogan loogu bixinayo in xukuumaddu ay noqoto mid meel marta, waxaana habka meelmarinta xukuumadda loo maraya qorshe cusub oo ah in wasiir walba uu la yimaado xildhibaanada beeshiisa oo uu ka dhaadhiciyo inay codka siiyaan xukuumadda. Wasiirkii la iman waayeen ee xildhibaanada beeshiisa waxay ka dhigan tahay inuuna xukuumad si mid ahaan doonin. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.